wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa ka digay in waxa uu ugu yeeray dacaayado laga abuurayo ciidamada Jubbaland ee sugaya amniga magaalada Kismaayo. waxa uu sheegay in musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee xilligan ololaha wada laga doonayo in ay wanaag wax ku raadiyaan balse aan laga aqbalaynin in ay gaf u geystaan ciidamada Jubbaland. isaga oo sii hadlaya wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid ayuu sheegay in qof walba uu musharax u noqon karo madaxtinimada iyo xildhibaanada Jubbaland balse aan laga aqbalaynin in wado qaldan madaxtinimada uu ku raadiyo. waxaan rabnaa qof kasta oo reer Jubbaland midka musharaxa ah midka shacabka ah midka hadda nidaamka hayo ama wasiirka ama xildhibaanka ah ama askariga ah ama madaxweynaha waxa dan u ah nabad iyo amni in laga wada shaqeeyo si wax la raadinayay qofka wax raadinayay iyo midka haystaba nabad iyo wanaag wax la isku kala bedelo loo helo. waxaan rabaa saaxiibada musharaxiinta maalin waxaan maqlaayay nin musharaxa la weeraray gurigiisa alaab laga baxsaday kana la yeelay waa la burburiyay barnaamij noocaas oo kale oo baraha bulshada lagu qoray. arintaas waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida haddaba nin loo dilo kale been u ahayd sida haddaba nin loo dilay oo taagan oday oo nabadoon ah been u ahayd. waxaan markaa wax propaganda laga shaqeynayo oo laga hadlayo in la iska daayo xumaanta in la joojiyo in qof kasta oo wax raadinayo wada sax ah oo wanaag uu ku raadiyo. digniintan ka soo baxday wasaaradda amniga Jubbaland ayaa ku soo aadeysa xilli qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ay eedeen iyo dhaliilo u jeediyeen madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ee iminka talada haysa.